بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo sulboodna la socotaan halkani waa shabakada wararka shacabka TV oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay ee dalka barnaamijyo dhaxalgal ah iyo sidoo kale hadda waxa ugu xiisaha badan ee dalkeena hooyo caalamka ka socda barnaamijkana waa barnaamij gaar ah oo xiiso leh isla markaana aanu kaga hadlayno dhibaato loo geystay tiro saxafiyiin ah kuwaasi oo soo baahin rabay dhibaatadii ka dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dagaalkii xooganaa ee ururka Al-Shabaab xalay ku qaadeen degmadaas balse saxafiyiinta markii ay tageen halkaasi qaar ka mid ah dhibaato xoogan ay kala kulmeen askarta gaar ahaan ciidamada booliiska kadib markii aan aragnay dhibaatada baaxadda leh saxafiyiinta loo geystay ayaanu markaasi ka damqanay oo aan markaasi jeclaysanay inaan ka sameeyno barnaamijyo aan ku wacyigelinayno bulshada maadaama dhibaatooyinka cankaasi oo kale ay yihiin kuwa ka baxsan xuquuqda aadanaha haddaba waxaynu eegaynaa qaar ka mid ah saxafiyiintii dhibaatada ku dhacday oo aan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono isla markaana dhibtii gaartay ka warbixinaya maadaama shacabka TV hadba wixii xaqiiqda ah oo markaasi uu ka damqado shacabka Soomaaliyeedna uu soo bandhigo idinkuna wixii fikirkeena ah askarta inay si wanaagsan kula dhaqmaan bulshada waxaad noogu soo gudbin kartaan qaybta hoose ee faalooyinka shacabka TV وإيش ورك السودان حقيقة كسر يسن إسلام كان قدام قدام الشعب الصومالي وحراجي نقيت وصفالي يمكن نقول سوق البيئة برامج كان الشر جريء ورمها واي هاي هدي إنه كوبلنا برامج كنا سبب برامج كبعض كم مخشان ترى صحفيين أو كول قال التلفزيون الصومالي كيبل أي تعدي آد بحد لك كل مي قيبها عيدنك هذا بقى وحنو إيجنا متكمل الصحفيين تاسي أو شرحية وحي بقى تضل هواي كل من عيدنك سي مركا أصول تبيان دجالك كدع هبينك حليها دجمة كحدة قبل كبنادر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يحلل إسماعيل محمد موسى وحنا صور قاضي صومالي كيبل كشغية ساكي أباري سجال 6 ساعة قدر لما 6 ساعة يعني أنت كبحني أنا هولين شقة جودين وحنا كحلا الله سبحانه إنه حبينكي حلها أي شقة جودين كده عنسي أنا سوق فرقنا ضدك أوصل بندقنا قار كمية الصحافة كهالكش مقدشة تيفي اللي هذا تيفي يونيفرسال اوكي وحن مش ان كوتنا تيفي يونيفرسال تيفي 5 تيفي سومالي كيبل تيفي انا كسوده كودي waxaan ka hormarnay kaxda marka tagnay degmada nasiibanaag anaga degmada joogna ay gudoomiye yimid in askariya meesha jooga si fiican oo soo dhaweeyay يقولون مركي أي سوق جلاين أي هندات إنه وصل بين مكان لا صعد أيضا كقدوميها تبدأ وان حنا وريال كلدو أنا كالصعد تلفزيون كلدو حنا بعنا قدومية دقمة على قلنا وأنا صرت قلوا ويس حلي قدوميها جانس ما هايو هذا قدر لو 20 دقيقة مركان أرجع إنه وحبنا قفصوا منين nimankii staafka inuu diidiyeen gudoomiyeyn gaarigiisa ku dhex jiro go'aan xasan qaadanay wasjilco iyo anaga iyo bahdii in socona inaan aadno xagga stationkii baan aadnay markaan tagayna meesha meel waxay ahayd runtii aad yani ay ka muuqato yani argagax badan meel yani jiingadaha markaad aragtaa soo xasuusanaysa 1991kii wax ciidan kuma aan arkin markaan tagayn meesha waxa jooga dadkii degana xaafadaha saldhig agtiisa degana iyo dad oo guryahooda soo booqday iyo dadkii daawasho u yimid bisma qalaan meesha ka qaadanay maqala markaan meesha qaadanay aan dhamaysanay maxamed marka waxaan soo go'aansanay in xiritaan uu soo biyo xiritaanka anoo wadna ayaan dhahanay BTS كردوها برنامج كورد بس BTS كردوها هي نمكي أسيقوا سوجي ده أنا أركي أمريكا سوقلن
maxamed waxaan ku dhahay markaas u dareensanaa dhaqso ulow yacni isaga tuhunka aan qabo oonu ku jirno yani fokus saaray inuu soo dhameeyo yani ay muhiimadiisa ahayd alcamum go-aan baa qaatay markuu ninkaan ay fahmayn nimanka ay soo socdaan ninkaan waa u baaqay waan muuqaalkan arki doontaan waan kaameradan la cararay memoryaan ka bixiyey dabadeed memory asaa u dhiibi si haddii noola qabto oo wax kiisa nagula waayo lacala in ku jirno diibla dadkan ay marmarsidii ay ku suubsanayaan kiis bay nagu raadanayaan memory aan dhiibi camera gacanta qabtay taydhano waxba kama yaqaana camerada memory xaq qofna weydi mareen memory camera markii laga qaaday ninkan walaalkay waa iga horreeyey tribadku waday waxaa loo dili si arxan darre ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed xasan yuusuf ka shaqeeya Soomaali Cable reporter saakay markay ahayd saacada 8 iyo qadar 55 daqiiqo waxaan ka baxnay xarunta inagoo u soconay inaan soo tabino arin xalay ka dhacday kaaxda isla markaana saldhiga kaaxda ciidamada ay xalay soo weerareen al-shabaab inaan dadka u soo tabino waxa runta ah ee ka jirta meeshaas saakay markaan tagnay degmada ayaan horta ku hormarnay oo aan doonaynay inaan fasax kaga soo qaadano degmadii markaan tagnay gudoomiyihii isagoo gaarigiisa bruufta ku jiro ayaan isku daynay mar waliba inaan la hadalno anagoo gaarayna ilaa iyo 4 ruux oo 2 TV ka socda waxaan weydiisanay mid ka mid ah ilaaladiisa in uu naga geeyo arin anaga aan rabno inuu noogu sheego oo aan dhahno waxaan doonaynaa inaan naga fasaxdo inaan tagno saldhiga xalay weerar ku dhacay isla markaana ciidamada jooga nooga fasaxaan dhahno ninkii wuxuu yiri waa yahay waan isku dayayaa uu yiri waxay kadib nagu soo laabtay wuxuu yiri meeshaas waa tagi kartiin laakiin gudoomiyaha inuu intii hadla hadda diyaar uma ahan marka waan soo qaadanay go'aankii meeshii waa tagi kartiin aan ku soo baxnay meeshii markaa imaanay waxaa joogtay hal TV oo universal ah oo kaliya inta kalena wax askar ah ma joogo waxaa joogtay 2 boolis ah oo dharka caadiga booliska wato booliskan gobolka Banaadir inay yihiin rajayna ay joogtay noloma hadlin waxaan shaqadeena sii gudagalnay cameraman Ismaaciil iyo cameraman kale Maxamed Baari oo 5 TV ka socda shaqadii ay gudagaleen muuqaaladii ay duubteen marka muuqaalada duubanay mid ka mid ah haweenka deganaa halkaas isla markaana guriga ku dhaganaa saldhigii xalay la dumiyay oo dhulka ahaa oo dhulka la dhigay gurigii ku dhaganaa mid ka mid ah haween oo ka badbaaday oo tiri anigu waan ka badbaaday oo warbaahinta la hadlaysay markay hadashay anaga waxaan isku daynay inaan dadka la raadino oo xogta warka hayo dadkii kale xogaa xaalada amni darteed ayay u baqeen marka waxaan sameeynay in dadka la markaan waynay anaga inaan soo xirno muuqaalkii oo bulshada aan u sheegno in guriyihii ay burbureen oo dhulkii saldhigii dhamaa oo dhulku yimaaday darbigiisii oo caradii oo kaliya ay ka soo hartay warqadihii oobiga ee maxkamadda ahaa in ay meeshii daadsan yihiin oo waliba dadkii xitaa dambiilayaasha ku qorayn inaan soo gudbin aan doonaynay waxa nagu yimaaday taliye fanax oo ay tahay markii ugu horeysay aan arka aniga oo ciidamo oo hogaaminayo gaariga wuxuu kaga soo degay gaari adiga 4 cabdibila camal ay ahaayeen iyo gaari uu asaga saarnaa waxay kaga soo degeen meel anaga agteen ahayd marka aniga muuqaalkayga ayaan sii watay oo dadweynaha ayaan rabay inaan u soo gudbiyo oo warbixintayda ayaan sii akhrinayay mislahan taliyaha adiga ku imaanaya mise haddii u badato hadduu ku yimaado xataa TV-ga ka socotaa wax wanaagsan gudbiyo ku dhihi doona ayaan islahaa runta ka hadal laakiin markii aan imid halkaas oo taliye aan aragnay oo waliba ayagoo qaylinay ulul qaar kale askarta asagu wuxuu watay ul oo garuun ah ama bud sida u taqaaniin asaga markaan arkay ciidamadii kale ee raasanayo guriyihii alwaaxyadii ka dumay oo soo qabsanay markaan aragnay ayaan ogaanay in xaaladdu ay wanaagsaneen marka waan joojinay shaqadii markaan joojinay xaggoodan aadnay si aanu ayaga xitaa aanu wax ugu raadin xaqiiqda markaan xaggooda aadnay taliyaha anaga ugu horeeyay wuxuu ila qabsaday tirabeedka oo kaameramanka aan ka qaaday tirabeedka markuu ila qabsaday ushii ugu horeysay aniga ugu dhuftay garuunka markuu ugu dhuftay ilaa amarkiisa wuxuu ila rabay meelahan maskaxda ahaan waa wajiga waan isiga dhigay gacanta markaan isiga dhigay gacantii ugu horeysay waatana tanay ku dhacday way barartay markay barartay mid kale ugu soo celiyey tan hoosaan u dhigay kor aan u sii qaaday hoosaan u dhigay way sii barartay oo ujeedaan kadib markii ay sidaas ay noqotay
wuxuu isku dayay ushii markii ay jabtay wuxuu soo qaatay alwaax meesha yaallo anna aan taaganahay ma ordi kari qoryaa liigu hayaa laba kala qori igu hayso wuxuu soo qaatay alwaax oo ay ka jajabeen gurihii xalay diris dadkii ciddi iyo saldhigii alwaax markuu soo qaatay markuu ugu dhuftay waatana sidaan ay madoowaatay waa alwaax ul iyo alwaaxna isma lahan saasaa gacanta markaa siiga dhigay oo aan iska difaacay wejiga aan u diidana inay garaaf iga soo gaarto oo wuxuu isku dayay haddana in caadi uu gacmaha ila soo galo ninkii lama dagaalami kari waa nin dhar sharci wato tuutaysan oo dhar dowladeed wato qoryo liigu sii haayo kadib ma isku dayin inaan la dagaalamo laakiin waxaan iska difaacay ulashii oo asagii ugu soo ridayay in meel xun ay iga dhacdo oo beri mustaqbalkayga aan ku waayay marka ulashii markaan iska xiray oo aan iska difaacay wuxuu sameeyey in si toosa gacanta ila soo aado waan xasuustaa halkan oo qoorta ah oo dharbaaxsho camal ayuu xoog ila qabtay dhulka ila sii riday dhulka markuu ila sii riday waxaan sameeyey in gacmaha iyo weli aan kasii dagaalamo oo aan iska xiro ulashii wuxuu sameeyey markaa mid askari meesha taagnaa uu yidhi fadhiisi indhaha ka xir indhaha intuu iga sii xirayo kii kale askariga haraantiyo ayuu igu sii dhufanaya duudka gacmihii xero dhahay gacmaha maxaan ku xiraa aan dhahay marka gacmaha masruarkaan siibina aan dhahay gacmaha maxaan ku xirnaa markaa saas dhahay uu yidhi shaatigaada siibo indhaha ku xiro shaatigaa siibtay indhaha ku xirtay indhaha markaa ku xirtay istaag oo dhahay waan istaagay mid askari oo asali jooga uu yidhi hore u wad gaariga agtiisa geey